fadlan please share subscribe kusoo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 350 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصيب أمتي داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. رواه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك والحديث حسن. إخوة الإسلام والإيمان، ما أنتو تاريخ الإسلام كي تهي الشنتي بشي لبا سفر سنة كنا فربقل فرطني لبا إسلام كان وافقسان لبا تنكي بشي سقالات سنة لبا كن إيو لبا تنك. وحانو كجري موضوع أني بلارنا قيمها بدنا كصاب سنة الزهد والرقائق قيبيسي كلا دوانا أيانو كجر شالي وحانو قاضني نبي عليه الصلاة والسلام إنو كدقي وأمدي سوغا ورمي إنو إسو قدبي ومضي هورا تشيروين قبي تشيرين وأمراض خطرة قلوب تكون عايز إنا أيها مسلمين تحقوا ذا إسو قدبت دب إليكم داء الأمم وحاق إنو إسو السعودي وإذن سو قدو ماضي هور جروين كود الحسد والبغضاء. حديث كان ما أنت حديث كاكلا الشلي أيو كاك دوية نبي عليه الصلاة والسلام أيا وحوله سيصيب وحا أصيب دونه وكل عدونه أمتي أمتي إذا داء الأمم أمضيه جروين كود وكل عدونه محيهن جروين كاس الأشر كبركي الأشر نعمة إلهي oo lagu kufriyo iyo wal badaru nicmada ilaahay oo lagu xad gudbo iyo duqyaan iyo kibir maartay laga qaado iyo watakathuru badsi wax badsi iyo adduunyo jamcinteed dadaalkeed fara badan iyo watashaaxunu culaytan iyo cuqdad fi dunya adduunyada dhexdeeda lagu ciloobo oo maartay cuqdad iyo maartay cadaawad adduunyada dhexdeeda marka lisu qaado iyo watabaaqudu iskarahaysi isnacayb iyo col iyo wataxaasudu isxasistaan lisxasto oo qofka kale nicmadu in ilaahay ka qaado uu maartay uu ku xasto xataa yakuuna ilaa uu ka aado albagyu xadgudub iyo dulmi ilaa uu ka aado nabigu alayhi salaatu wasalaam. ikhwat alislaam waliimaan, xadiidkan waa xadiid xasana wey. waxaa soo saaray الإمام أبو عبد الله الحاكم كتاب كيس المستدرك طبراني ناسنا وصوصارها في المعجم الأوسط أيوة أصلا وصوصارها يا غير كود حديث الشيخ الباني رحمة الله عليه حسن بوكو حكومي لبن ميلوت صحيح جامع صغير حسن بوكو حكومي الرقم كحديث كصدح كل لحب بقول كونتن يسيديت سلسلة صحيحة أيضا وحسن بويري رقم كحديث كلحب بقول يسيديتا ويجران علماء كلا وحديث مارتي ضعيفسي مارتي هو معاصرين يا غير كود معاصرين رقم ماركا حديث كصحيحين وحاكميدا مارتي نيكلي هذا زيد بن مسفر البحري سعودي محدث نكاس وسودوي ابو عبد الله الحاكم حكوا وافق امام الذهبي كتاب كيس تلخيص اصلا حد سنه كيس واسعي ويان بوري مارتي يا واحد من الحديث ماركا حديث شلي ايو شاهد نقون هيا حديث شلي أي شاهد سوي مسحوقين هيان إذا هو حديث حسن وي. إذا أنت مركان كتاقن وحديثك وحديث سوغين هي حديث كان محولة هي مركا أمراض المسلمين تمان هي ستة وحديث كان كاضايا نبي عليه الصلاة والسلام وحيري أمضي إذا وحا أصيبي دونت وحا أصيبي دون أمضي إذا أمضيه هوري تشيروين كودي وأصيبي دونت داء الأمم ummadii hore jirooyinkoodii culimmadu waxay leeyihiin ummadii hore jirooyinkoodii daa baa laga cabiray. nabigu wuxuu isticmaalay baa layidhi waxyaabaha jidhka ku dhacaa marad la yihahdaa marad baa la yihahdaa jidhka daa maa ujeedaa daa waa jidhka waxa ku dhaca. idan wixii jidhka ku dhici jiray oo daa la dhihi jiray baa waxaa loo isticmaalay shay macaani ah شيء معانية قلوبته والي هذا قلوب المرضى قلوب جيران والي هذا
afii quluubihim maradun am irtaabu waa ilahi subxana wa tacaala maradka qalbigana wuu ku dhaca jirkana wuu ku dhaca idan daagana sidoo kale wey idan waxyaabaha jirka ku dhacayo macnawi loo isticmaalay wey idan ummadihii hore jirooyinkoodii ayaa ummadayda asiibi doontu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu halkan ku sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam 6 cudur buu sheegay 6 cudur oo ummadan muslimiinta ku dhici doontuu sheegay alasharu walbataru waltakaathuru waltashaaxunu waltabaagudu waltaxaasud waa 6 cudur weeye asharka iyo badarku waa isku macno weye waa kibir weye asharka iyo badarku waa kibir weye asharka sii daranoo maaragtay kibir xag maaragtay aad u fogaaday weye marka ummadahayga waxaa maaragtay ummadihii hore jirooyinkoodii ayaa ummadayda asiibi doona alasharu walbadaru laakiin alimaam cabdirauuf almanaawi kitaabkiisa faydulqadiirka oo jaamic sakiirku ku sharxayey wuxuu ku kala fasiraa iyadoo asharka iyo badarku ay labaduba kibir yihiin buu xadiidkan wuxuu ku fasiraa asharka waxaa loo yaqaanaa inay kufraanu nicma qofka ilaahay u nimceeyo nimcatu dunyaa siiyey iyo caafimaad iyo adduunyo meeshuu shukrin lahaa inuu nicmada ku kufriyo kufraanu nicma yaa ashar liyaada badarkana waxaa weeyaan duqyaanu nicma adduqyaan cinda nicma markii nicmo qofka ilaahay siiyo inuu duqyaan iyo xadgudub iyo kibir inuu la yimaado idan labadooda markaa noocaa weya alasharu huwa kufraanu nicma wey nicmadii oo lagu kufriyo sida qaaruun oo kale uu sameeyey walbadaruna adduqyaanu cinda nicma weeye nicmadii agteeda markii qofki ilaahay u nimceeyey inuu duqyaan adduqyaanu cinda nicmati wa shidat lmarax kibir inuu nicmadii kibir ka qaado meeshuu tawaaduci lahaa inuu nicmadii ku kibro takaathurna haddee waa tafaakhur weeye iyo faan iyo dadaal iyo waxbadsi adduunyadii inuu qofku tabcado lama diidin laakiin adduunya badsi lagu tartamo takaathur hebel yuusa kaa xoolo badin adu u xoolo badnow oo adduunyadiisaa takaathur maaragtay alhaakum takaathur buu ilaahi subxaana wa tacaala yidhi waxaa idin shuqliyey takaathurkii adduunyada aad ku dadaalayseen oo badinayseen oo jamcinayseen baa idin shuqliyey idan takaathur waxaa weeyaan jamcu dunya walxirsu fiiha adduunyada lagu dadaalo tashaaxunna waxaa la yihahdaa atacaadi marka tacaadi bimacnaa tashaaxun wuxuu noqonayaa tashaaxunka waxaa la yihahdo atacaadi watacaaqud bimacnaa cuqdad iyo cadownimo iyo colaytan iyo cuqdad iyo xiqdi uu qofku qaado xiqdi iyo maaragtay colaytan iyo cadaawad weeyaan oo maaragtay adduunyadii lagu colaytamo oo lagu culoobo cuqdad laiskugu qaado adduunya darteed tashaaxunku noocaa wey tashaaxunku waa inuu qofku shaxn bimacnaa mashxuun qulubtiisa waa inay buxsanto oo xiqdi iyo cuqdad iyo cadowtanimo ay ka buxsanto adduunya darteedu saa u yeelayo tabaaqud waa isnacayb iyo karaahiyo iyo bukdi iyo nacayb wey taxaasudna de waa isxasaditaan weeyaan idan 6daa cudur oo ummadihii hore ku dhacay baa ummadaydana asiibi doonu xataa yakuuna albagyu ilaa xadgudubkuu ka dhaco markaa xadgudub dhulmi riwaayaad kale waxay xataa yadlima maaragtay bacdun bacda xataa yadlima bacdun bacda xataa yadlama bacduhum bacda ilaa qaarkood qaar kale uu ka dulmiyo bimacnaa waa xataa yakuuna albagyu weeyaan ilaa qaarkood qaar kale ay ka dulmiyaan oo dulmi laisku sameeyo heerkaasay gaadhayaan ikhwati filah markaa xadiidkan fiirisi caalamulislaami dhammaan amraadan oo dhan way ku wada dhaceen ashar iyo batar maarata kibir nicmada ilahay lagu kufriyo waad artay caalamulislaami batroolka iyo khaliijka waxaa ilaahay subxaana wa tacaala nicmo siiyey aaway inta shukridaa yar dowlooyinka khayr iyo wanaag mu adeegsadeen mase muslimiintii lagu baabi'iyey u adeegsadeen waad artay waxaa maanta ka dhacaya caalamulislaami iyo dhibaatada isku samaynayaan soomaali usoo noqo nicmada ilaahay siiyey iyo dhulka ballaadhan iyo xoolahan iyo nicmadaa faraha badan wakaad ayagii baa kala dhammaan la idan waa maarata badarkii iyo asharkii kufrada nicmada ilaahay oo lagu kufriyey oo duqyaan iyo xadgudub lagu sameeyey takaathurka maarata jamcu lamwaal meel kasta oo rag iyo dumarba nin kasta wuxuu suxulduubahayaa yaan lagaa adduunya badinin adduunyadoo lagu tartamo yaan hebel kaa adduunya badinin tashaaxun cuqdada iyo xiqdiga iyo isnacaybka
adduunya darteed marka tashaaxun u qofka quluubtiisa buuxsantay maaragtay cadaawad iyo maaragtay xiqdi adduunyo darteeda arki maysi diin qof maaragtay u coloobaya ee waxaa weeyaan adduunya qofkan kula coloobaya tabaaqud nacayb iyo karaahiyo iyo xasad waa arrin cajiiba weeyaan aad iyo aad khatar waa amraad intuba maanta muslimiinta haysata weeyaan culimmadu waxay dhahaan awalu dunuubta ugu horey 3 dembi cisyaan bini aadam uu la yimaado saddex bini aadam iyo keyrkiiba bimacnaa ilaahay oo la caasiyo 3 dembi ba ugu horeysa muxuu yahay alxasadu walxirsu walkibru saddexda macaasidoo dhanna kuwaasa asal u ali dunuubta ugu horeysa ilaahay lagu caasiyo saddexdaas ahayeen bali alkibru walxirsu iyo walxasadu yayna ka dhaceen kibirku wuxuu ka yimid ibliis markii la yidhi aadam u sujuud ayuu yidhi ana khayru minhu buu yidhi khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tin kibir baa u diida markaa inuu sujuudo ilaahay u hogaansamo kibir uu kibraayo oo iska weynaysiinaya aadam ayaa shaydaan maartay ayuu cisyaanka olayay markaasuu ilahay ku caasiyey sujuuddii buu diiday midda kale macsidii kale labaad alxirs dadaal waxan yuusa kaa baxsanin ama wax badan hel ama wax badan jamci iyo qofku markaa cisyaan u geli oo zakadii buu diidi oo xuquuqdii lagu lahaa buu diidi oo xoolihii maartay uu ku dadaalhayey ayaa waxay ka hor istaagayaan inuu khayr ku bixiyo xirsigaana cisyaanka aadan baa la yimid baa li jannadii markii la geeyo geedka ha cunin shaydaan wuxuu ku yidhi boqortooyaan dhammaanayni iyo nicmaan dhammaanayni ma ku tusaa haa geedkan cun buu ku yidhi idan nicmadii kasbo nicmo aan kaa dhammaanin hel ku dadaal dii buu geedkii cunay oo macaasi ugu dhacay idan adduunye jamci daba orod waxee xirsiga iyo dadaalkaas aakhiray ku seejinaysaa nabiyullaahi aadam ayaa arrintaas marka macaasi ugu dhacay alxasad aadam labadiisii wiil ayaa isku dileen markii labadooda id qarabaa qurbaanan fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhar qaala la aqtulannaka buu yidhi labadii wiila aadam dhale markii qurbaan iyo sadaqa ay la baxeen oo midkoodna laga aqbalay midna laga soo diiday sadaqadii in laga aqbalo meeshuu dib isugu noqon lahaa asaga ayuu kii laga aqbalay xastay wuxuu la aqtulannaka waan ku dilahayaa buu ka waaban kaasin gebigaadaba limaadaa sadaqadaadi loo aqbalay taydiina loo diiday haye sidii buu yeelo kurku ka goyey waa dilay nabiyullaahi yuusuf god bay ku rideen walaaladii xasadnimo ahayd kaa ina aadam wuxuu u dilay waa xasadnimo aqbalkaa sadaqada kaa laga aqbalay asna laga aqbali waayey famaa dembu lmaqtuul kii la dilay dembigiisu muxuu yahay sadaqadiisa rabulcaalamiin hadduu ka aqbalay maxaa dembigu ka galay maxay tahay ninkan kale dilay sadaqadaadi haddii la aqbali waaye waxay ahayd inuu dib iskugu noqdo yidhaha anaa khalal iyo maaragtay niyadayda aan fiicnayn haye yuusuf iyo walaaladii godka maxay ugu ridayaan aabbihii hadduu jeclaaday oo yacquub u jeclaaday famaa dembu yuusuf maxay tahay oo loo dilay godka loogu ridayaa oo maaragtay waraabaha loo siin iyo maaragtay dhibaatada loogu ridaya waa xasad weeyaan idan saddexdaa cudur baa ugu horreeyey cisyaan lala yimaado ilahay lagu caasiyo kibir oo shaydaan uu ka yimid ibliis xirsi dadaal iyo waxaan yuusa kaa baxsanin oo nabiyullaahi aadam la yimid oo jannadii looga saaray geeduu cunay iyo xasadnimo yaan lagaa badinin iyo maxaa lagaaga fiicnaaday saddexdaaba waa macaasida oo ugu horreysa ee ilaahay subxaana wa tacaala lagu caasi macaasida aqlabkeedana waxaa lagu leeyahy saddexdaasa asal ama kibir iyo isla weyne musaa u yeelay waa al asharu walbadar weye ashar iyo badar waa kibir wey cinda maaragtay nicma duqyaan nicmadii markii ilaahay qofkasi uu kibro iyo kufri oo nicmadii uu ku kufriyo waa halkaas soo hosgelayaan marka kibir waa kibirkii ibliis wey attakaathur waa tartankii adduunyada iyo xirsigeedii attakaathur iyo tashaaxun fi dunya inay adduunyada loo tartamo oo jamcinteeda loo tartamo oo jamcinteeda cuqdad loo qaado oo laiskula celooba adduunyadii waxay noqonaysaa waxay soo hoosgelaysaa halkaas waa xirsigii weeyaan dadaalkii iyo jamciskii weye iyo macal tabaaqudka cadaawadda iyo wixii lamidka taxaasudna hadda waa nicmada qofku inuu tamaniyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala qofka nicmo ilaahay siiye inuu ka qaado idan cudurada oo dhan iyo amraadaas oo dhan asal waxaa u iyo macaasida saddexdaa cudur baa asal u ah saddexdaa marad oo saddexdaa cisyaan kibir dadaal oo shay maaragtay aad loogu dadaalhaya
iyo xasad saddexdaas asal saddexdiiba hadda lixdan cudur ee meesha lagu sheegay saddexdaasay soo hosgelayaan sayusiibu waxaa asiibi doona ummatii ummadayda daa'ul umami ummadihii jirooyinkoodii ayaa asiibi doonta riwaayad kale waxay ahayd qaaluu waxay dhahan yaa rasuulallah wamaa daa'ul umam ummadihii hore jirooyinkoodu maxay ahaayeen markaasuu nabig wuxuu yihi al asharu waa kufraanu nicma al asharu nicmadii oo lagu kufriyo iyo walbadaru nicmadii oo lagu kibro iyo watakaathuru adduunyadii badsigeedii oo lagu maaragtay aada loo jamciyo lagu maaragtay lagu tartamo iyo watashaaxunu cuqdad iyo isnacayb fi dunya adduunyadii dhexdeeda cuqdad iyo maaragtay tashaaxun iyo cadaawad iyo cuqdad maaragtay loo qaado adduunyadii darteed iyo watabaaqudu cadaawad iyo isnacayb iyo karaahiyo iyo wataxaasudu isxasistaan lisxasdo nicmada ilahay laisku xasdo xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado albagyu dulmi iyo xadgudub ilaa uu ka dhaco idan amraadtaasoo dhan oo ummadihii hore ay qabeen ayaa ummadayda ku dhici doonuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam wa ficlanna way dhacday maanta dowladda kale heshiis la-a ma jirto tu kastaba inay baabi'isay doonaysaa oo mudamada muslimiinta shacabka kale maarata heshiis la-a ma jirto bal halkii qoys baa laga yaabaa inay intaa u kala baxsan yihin oo col ay yihiinba adduunya darteed lagu culoobayo ninba ninka kale yuusa kaa badin uu leh ilahi subxaanahu wa tacala waxaan weydiisanaa biasmaa lxusna wa sifaati alculaa inuu xaqa nadsanuun irsaaqa xaqa raacitaankiisa walaalaha marka waxaan naftaydii naftiinaba u dardaarmahayaa amraaddaas in laiska ilaaliyo alasharu walbadar kibir nicmada ilahay lagu kufriyo lagu duqyaano lagu kibiro waa qaaruun dhulka lala gooyay markii dambe takaathur adduunye badsi iyo jamcinteeda iyo orodkeeda in maaragtay aakhire ay ku ilowsiiso tashaaxun cuqdad laisugu qaado adduunya darteed laisu naco iyo buqdi iyo isnacayb iyo karaahiyo maaragtay aad qofkaa kala karaahaysid la colowda ood nacdi adduunya darteed taxaasud nicmo ilahay qof kala siiyo ood xasad aad ku xasd maaragtay aad kula colowday ood xasad aad u samaysa ood ku xasad nicmo ilaahay siiya caafimaad ama xoolo ama wax siiya famaa dembuhu muxuu yahay isaga ilahay baa siiya adugu maa ilahay beridi ilahi subxaanaه wa tacala hana badbaadiyo hal mar baa ikhwati fi lah xadiid ay ku celinayaa alxadiiثu 350 can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam sayusiibu ummatii daa'u اlumami alasharu wاlbaطru wاtakaathuru wاtashaaxunu fi اdunya wاtabaaqudu wاtaxaasudu xataa yakuna albagyu rawaahu abu cabdillahi alxaakim fi lmustadrak wاlxadiiثu xasan هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضلا بليز شير سبسكرايب كسودو.